wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta kula hadlayay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu xiisad colaadeed ka aloosiyo deegaanada iyo waliba xuduudaha u dhaxeeya labada dhinac ee Soomaaliland iyo waliba Puntland waxaana uu sheegay in 4 gobol oo kamid ah dawladda Soomaaliya laga soo qaaday ciidamo isla markaana lagu soo dhaway xuduudda Soomaaliland la leedahay Puntland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu arimahani ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisii arinta imika jirta waxa weeye xaaladdu saaka halka ay maraysaa waxa weeye ilaa 4 gobol oo Soomaaliya goboladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday waxa la soo duldhigay ciidanka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ballanqaadkii uu sameeyay qoladan international community-ga waxa uu sheegay inaanu colaad wadin Soomaalilandna doonayo inay wada hadal Soomaalilandna ay doonayaan in ay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan labada dhexdooda waxba ku jira waxa ku jira waxa weeye xaaladda abuuran ee maanta ka taagan maxaan ku dhahdaayay god qaboobe iyo garowe dhexdiisa iyo ciidamada faraha badan leh ee laga soo ururiyay gobolada maxaan ku dhahdaayay Soomaaliya inta dhinaca waqooyi oo dhan maxaan ku dhahdaayay laga soo ururiyay waxa kale oo aan xaqiiqo noqonaynin afkii uu inakana inagula hadlay qolada maxaan ku dhahdaayay international community-gana kula hadlay oo leeyahay aniga nabadana dhulka iga taala Soomaaliland waxaan doonayaa inaynu wada hadalno Kaahin Axmed ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada caalamka iyo waliba dawladaha jaarka la Soomaaliland in wixii ka dhaca deegaanadaasi ay mas'uul ka tahay dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo bulshada caalamka dalalka aan jaarka nahay dalka Djibouti dalka Ethiopia madaxweynaha Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo guud ahaan labada dawladoodba dawladaha IGAD ee Geeska Afrika ururka midowga Afrika ururka midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaarsiinaynaa xaaladda colaada ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Somaliland dhexdooda Somaliland mas'uul kama ahe waxa ka mas'uula dawladda Soomaaliya Rashid Abdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa